salaamayaa dhammaan akhyaarta iyo dhalinyarada ka soo qayb gashay xafladan aadka ugu quruxda badan sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dhalinyaradii iyo agaasimkii iyo dadkii soo agaasimay xafladan aadka ugu quruxda badan kolay wax badan oo mataqaana la sii tilmaamay meesha ma yaalaan ujeedka ugu weyn ee caawa meeshan u fadhino waa soo bandhigidda iyo soo dhaweynta iyo taageerada loo hayo mataqaana Dr. Abdullaahi Xaashi Xabiib marka kolay wax kale aan ku sii daray meesha ma yaalaan insha Allah intaas aan ku soo gabagabeynaya waxaan taageero hiliyo oo la garab taaganahay Dr. Abdullaahi Xaashi qof waliba waxa taageero qofkiisa anagana waxaan taageero hiliyo oo la garab taaganahay Dr. Abdullaahi Xaashi أولا وأنا سلامي بدون قروح البضان لي دمانتي أسكوت مادين وتمام كمان وحنا كنت عايرنا ويصير في دكتور لمتى دكتور عبد العزيز حاشي وحنا هي أفرتي سنة لصور عفي وحنا نقوم تلي كرسية نقوم سريع بلا حبر marka hoos soo daadegana ku soo garguusay waxaan ugu matalay Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo isagu muxuu ahaa in 6 sano ilaa 4 sano dambaba jooga meesha waxaan leeyahay 4 sano horta beeshan Maxamed Case laba bay u qaybsanay kuwa ma aragtay gol lagu riday oo raba wax ka soo saaray godkaas iyo kuwa maartay marwal baaba muxuu ahaa waxa jira kuwa sanduuq lagu xidhay iyo kuwa kale maartay afka la daba dhigay oo umada kala qaybiyay balse soo noolaashihii muxuu ahaa iyo dib soo celintii midnimada beesha Maxamed Case waxaanu ka sugaynaa iyo maartay dadka in isku laab xaalo oo maartay cudurkan kala dhex dhigay 4 sano dib maartay ka bogsiya waa Dr. Abiib Xaashi Abdullaahi Xaashi waxaan leeyahay shaatoole waxaan taageerno saxaabatumeena oo garab joogay Dr. Beeluha isna sidii ma aragtay 4 sano ka dhamaatay waxaan leeyahay insha Allah kan soo socda warshanaada ku garab joognay maantana waxaan garab joognaa waxaan garab joognaa meeshana kulay xilka wareegto waa iska kala dambeeyaa waxaan leeyahay midda koowaad inay dhicisay 2016 dhacdo kale ma musharaxiinta qaar lagu sameeyay oo ragga tartamaan ana kala badiyaan waxyar qiyaasayna ma ku sifoobay Abdullaahi liidarka wax looga baahan yahay aba inuu hogaamin karo waan garanaynaa waa nin hal abuur leh wuxuu abuuray markhaati leedahay aan u baahanayn in maaragtay social media ku jirta meel kasta laga arki karaa hal abuur go'aan qaadasho nin la weeyay oo wixii uu abuuray ma fuleen iyada laftigoodana wax la taaban karo wax maaragtay sacab lagu qarin karo ma qofku hadduu hal abuur leeyahay fulintiina raacinayo go'aan qaadashadii uu leeyahay waxyaabaha kale lagu qiyaaska liidarka lagu qiyaaso ma leeyahay qancin ama waxa la yiraahdo aftiyaha halkaraan ma leeyahay dabcan waan ognahay malaha inagu ma indhaha ku dhageysanay caddaan iyo madow Cabdullaahi waa qanciyaa oo waa nin halka maaragtay cid uu rabo inuu wuxuu rabo ka iibin karaa saddexdaa mar hadduu ku sifoobay anigu shakhsiyan waxa leh taageero hiliyo hooyo baan maaragtay isla garab taagno qiyaamo qucuudan aan taageerna Cabdullaahi marka waan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay maaragtay waa in taageero aan loo kala hadhin la siiyaa
soo dhaweyna ninka la yidhaahdo cabdilaahi xaashi abiib waa nin maanta madaxa wey waa nin waddanka xaqule waa nin istaahila in la doorto isna uu wax doorto inteennanina waxaynu isugu nimidnay inaynu maanta ninkaa isaga ah aynu taageerno walaalaheenna sharafta lehee meeshii joogan horeyna waynuu taageerno haddeerna waa taageeri doonnaa marka waxaan leeyahay waxaan isugu imaanaynaa waxaa Soomaaliya u dhan tahay weeyaan waxaynu maanta walaalkeenna wax ka doonayo inaguna aan ku taageerayno walaalaheenna ay ku joogeen marka ma noqon karto in maxaan ku idhaahdaa nin Soomaaliya oo maanta wax walba istaahila oo hogaamin kara bulshooyinka Soomaaliyeed in maxaan ku idhaahdaa in yaro magaciisa ay wax isku yar qabto ceeb wey walaalaheenna waa mahadsan yihiin idinkuna dhalinyaradiina ka soo qayb gashay halka ficil ka samaysay horta aad baa mahadsantiin waxaynu haddaba samaynaynaa inagoo walaalaheenna wax u dhimin walaalkeenna taageerayna ayaga laftarkooda wax u sheegayna shalay baynu ayaga garab taagnay shalay baynu ayaga wax la qaban horta dhaliilo way noo dambaysaa maanta inagoo dhaliilo kama hadlayno ceebna kama hadlayno kuwaasina waa walaalaheen kanna walaalkeen wey marka waxaan leeyahay inaynu walaalkeenna taageerno walaalaheenna inala gartaan aynu sidaa gacmaha intaan isqabsanno aynu ku taageerno walaalkeen taasi waa qodob ta kale waxa weeye marba waxa joogta waqti baa taagan aynu aqoonyahankeenna soo saarno aynu aqoonyahankeenna ku dhaadanno cabdilaahi aan eegno xilkuna waa wareegto waxa fiican inaad marba mid laga qaado marba mid loo dhiibo taageeraduna waxa weeyaan marba kii ay dadku ay dantooda ka arkaan inaad taageeraan baa muhiima waanu isbaranay nimanka meesha jooga maasha allah iyaga laftigooga liidi maayo waxba ma qaban oran maayo laakiin haddana waxaan isla garanay inaynu maantana bal cabdilaahi oo muddo la yeerinayay oo ma taqaanaa bal inaanu raggaa ka heelin oo garab istaagnaan maanta ugu talagalay cabdilaahina waxaan leeyahay cabdilaahi nin walba waa markiisii waa markaagiyo soo dhowow cabdilaahi ayaan leeyahay waxa weeyaan kulley waxa la yidhaahdaa nin walba waqti buu leeyahay waqtigani waa waqtigii cabdilaahina heeliyo hoo waan la garab taaganahay